بسم الله الحمد لله arintaasu sidaad carabka ugu dhufatay waa run gobolkaani ama statekan Hirshabeelle waxa mara webiga Shabeelle gobolkan waa gobol qani ah ama stateka baan iraado bar iyo beer iyo bad baa leh inkastoo baddu qalabka shaqo iyo khibradda shaqo ee dadku u leeyahay ay yartahay waxa yar ka soo baxana suuq loo iibkeeyo aan lahayn iyo wadooyin waxa la mariyo hadaan u soo laabto wuxuu ahaa qudaarta waa la iibkeeyaa hadda oo koostada iyo yaanyada iyo xamar baa loo qaadaa iyo goboladan dhexe siiba gobolada dhexe waxa loo qaadaa yaanyada laakiin koostada hadda xamar aad baa loo qaadaa iyo bocorka hase yeeshee wax soo saarka beeraha ka imaanaya ee suuqa loo soo iibgeynayo ee suuqa imaanayo cambaha yaanyada iyo saytuunka iyo qaraha waxa haboonaa lahayd dadkeenu haday gartaan inay samaystaan hadii qof yeelaba xataa awood aanay u lahayn inay isu tagaan ay samaystaan shirkado yar yar ama muxuu ahaa warshadaha yar yarka ee portable-da oo aan qarashku lacagtooda badnayn oo farsameeyo habeeyo cambaha iyo yaanyada iyo qaraha iyo saytuunka arinkaas aad baa loogu baanaala wax badan horaan uga hadlay meelo badan ama media ama meel goobo badan oo la isugu yimaado Jowhar wax badan baan kaga hadlay wax mar kalena waa ku celinaya arinka waxa fiicnaan lahayd dadku waxay isku hawlaan wax aan wax badan ka soo bixin hadii warshadahaas yararka la abuuro beeraleydana wax tarbay u yeelanaysaa niyaday u dhisaysaa tacabkii waa lagu dhiiranaya shaqana waa shaqa abuurna way imaanaysaa warshadii yar yar warshadii dad baa ka shaqeynayo oo shaqa halka laga helaya taas marka waxay wax ka tari lahayd beeraleydana dhiirigelin bay u noqon lahayd yaanyada waxaan ognahay tanagii marbuu 5 kun tagaya hoos ama la qubaya marne 750 soo joogaad arkaysaa waa dhaweed 500 baan ku arkay sida ay si laga cambaha marba beerta laga yimaada oo suuq loo iibgeeyo la waayay hadii la warshadeeyo waxa soo dhan faa'iido badan baa ka imaan lahayd oo arintan hore carabka ugu dhuftay waa ka imaan lahayd oo dadku inay shaqo helaan ninka beeraleyda inuu tacabkii ku dhirso inuu nolol fiican helo ayaa waxa soo dhan baa imaanaya qaraha laftiisa waa la warshadeeyaa anigu Jowhar waxaan ku cunay ama ku cabay qara bowdar iyo camba bowdar oo cumaan lagu soo sameeyo lagu farsameeyo oo bowdar gurigeyda ku qastay hada annagana waa kana waa noo baxay asagoo waa kana waa noo wada muuqda dareeraha inuu ku yaala waa nasiib darraday kama tahay waa dad xisaab la'aan baanu soconaa Soomaali hadana waa iska soconaa waxaad arkaysaa waxaan lahayn baan ku haminayna mar walba inaan wax qabsanaba diyaar uma marka wartaa qudaartu waxaan dhigaa hadda waa la bilaabay Jowhar koosada in xamar la keeyo tacabkeeda koosada waxaan ku dhaqeynaa afgooy iyo janaale meelaha xamar loo keeni jiray marka koosada qudheedu anaga waa nagu cusub tahay labadan sano u dambeysay ay koosada aad ugu baxdaa Jowhar loo iibgeeyo xamar waxaan rajaynayaa koosadaasu adeer qaadku waxaan ka keenaa Miro in Nairobi tabaara Miro Nairobi laga soo qaada koostada waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in halkaan diyaarad looga qaado goboladan desert oo regionska state regionskaas in la geeyo ayaan ku rajaynayaa dii alla idmataasan anigu ayaan ku adkaysanaya balse waxaan soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed oo state-kan u dhashay gaar ahaan Jowhar ama Soomaalida kale ee danaynayso in dalkooda maal gashadaan ama dalku ha joogeen ama adduunyada kale ba ha jiraan dadkii kala farxaday ba la noqday waxaan dheeraa war dalku muxuu ahaa jaanisyo badan baa ka jiro fursado badan baa ka jiro oo muxuu ahaa ganacsi leh oo warshado yar leh oo wax laga qabsan karo adeer dalalkaad u farxateen idinkuba waad aragteen qabowba adeer sanadkii waxa laga 3 bilood wax la tabco barbaraf baa dilay barbaraay kala ku fulan anaga waa kana dashaar baan iska wadanaa waxba muxuu ahaa noobas waxaan dheeraa dadka Soomaaliyeed dalkeena aan iibaansano وقرتي إن حليدي هراء إن بريسك iyo sisinta iyo galeyda ay dadku tacbi jireen labada sano la soo dhaafay maxaa ku dhaliyay inay qudaarta aad u tacbaan
wax badan ayaa ku dhaliyey. horta qudaarta waa biti cash wey, lacag fudud, si fudud baa lacag qofka biilkii waxoogaa buu soo qaadanaa. digaag beerta uu agtiri waxoogaa ukuman uu soo qaadana suuqu keenaya 200-300 kun soo wata iyo wixiisuu habeenkii hooyanaya. bariisku wuxuu u baahan yahay biyo fara badan ilaa marka bilowga oo beertu la talaalayo ama samsaayada meel kale lagu soo bixi hadana la talaalayo ilaa uu ka bislaado biyuu rabaa ku dhex jira. biyihii marka sanadkii tagay 2015kii aakhirkiisa waa go'an, bilowgii 2016kiina webiga waa go'ay. halkaa marka beeralaydu xoogaa dhib fara badan biyihii hadday marka la go'een meeshaa khasaara ka timi. marka xiga oo waxaasuba ka sii daran beeruhu markay soo go'aan oo bariisku soo go'o waxaa la keenayaa mararka qaar deeq baa la keenayaa oo WFP ICRC waxbaa la keenayaa. ninkii haddee bariiskii asaga wixii uu beerta ugu soo qarash baa galay, wixii uu ku soo baxay ayaanu suuqiibaba kala badan. marka xoogaa beeralaydu waxaad moodaa dhinaca bariisku in halkaa ay ka cagajiid noqotay. galayda sidaasi la eg waagii hore biyuhu joogtay ahaayeen, sidaa aan sheegay haddana hadda joogta maha. cudur fara badanna waa yimid. sisinta waayadii hore waa la dhoofi jiray, waxaa loo iibgey jiray adduunyadu dalal kale badan baa loo kala iibi jiray. sisinta Soomaaliya marka laga reebo Guatemala oo Latin America ku taalo diris la Mexico, marka laga reebo sisinta qolada labaad baa sisinta fiican ugu si fiican baan ka mid. haddana waa birayaha waayadan dambe looma helin meel loo iibgeeyo, iyada lafteedu hoos u dhac badan baa ku yimid oo waxa u sabab mar haddii mirihii la soo saaro baqaar lagu gurayo waxay ku soo baxaysay iyo suuqa aan islahayn. dadku xoogaa awal qaab ganacsi baa beeraha loo tabcan jiray. dadkii beeraha badan tabcan jiray 50 hektar iyo 100 hektar iyo ilaa 20 hektar tabcan jiray, sisinta waa ka warwareegeen iyo galeydaba waxay ugu warwareegeen dab meel loo iibgeeyo ma leh. taa dhib badan bay marka ayay keentay. galeyda qudheedu haddii hadda qaali bay ku fadhisaa joor marka loo eego hadda waa 8 kun koombadii. haddana marka gobolladii sidii la rabay isuguma furne oo hadda qaraa soo go'ay lama hayo meel si fiican xamar in la geeyo ma meel kale oo la geeyo lama hayo. wadooyinkii baa xoogad waxaad moodaa in wax badan oo dhibaato ay ka jirto oo muxuu ahaa taas waxa uu sabab marka meel loo iibgeeyo in dadku qudaarta u leexdaan waxa kale ka yara warwareegaan. sababahaas ayaa meesha yaala. webiga wuxuu ka baxaa tuulo hurwaa la yidhaa oo degmada Mahadai hoos timaado dhanka bari ayuu u baxaa. halkaasna sanad walba sisin fara badan ayaa ka timaada. fatahaadda uu goobtaasi ka sameeyo oo kale ma faa'iido ama soo khasaare? wallaahi dee waa labadaba way leedahay. waayo marka hore baxdo haddii iyadoo tabcan ay ka nabad gasho aanu mar kale ku fatihin buqdi aanu ku soo bixin faa'iiday leedahay. haddii iyadoo webigii dalagii saaran yahay beertu mid la siibaya iyo mid muxuu fiida wada iyo mid noocaas ay tahay iyo mid falkii ku socdo haddana webigii yimaado meeshana aan la xirin oo webigii ku baxo de khasaare haddana ka imaanayso. marka waa wax isbarbar socdo mar walba khasaaraha iyo faa'iido dhibkaas ay leedahay. marka buqdu markay baxdaa la rabaa in meesha la xiro oo shaqo laga qabto, webigana uu noqdo sidiisa webi la xukumo oo dadku ka faa'iideysan biyo xireenna leh muxuu ahaay qaabo badan oo loo xukumo leh. markii loo baahdana biyo xireenkii laga faa'iideysto. iska dhaafkan waa webiga togaga waaweyn caalamka ka faa'iideysta oo waaweyn oo mara muxuu ahaay hadda gobolada kale ka jira ayaa la xiro, badaha laga xiro, webiyada laga xiro oo meel la kaydiya oo ama koronto laga dhaliya ama beeraha dib loogu warabsaa. webigan laftiisa la heli karaa ma taqaanaa in meelo kale loo sameeyo oo markii biyo go'aan haddana muxuu ahaay beerihii mar kale lagu warabsaa la heli karaa. laakiin de aqoonteedii iyo dhaqaalihii waxaa lagu diyaarin baa loo baahan yahay in la helo. inta badan webiga sanad walba marka la gaaro xilli roobaadyada oo kale fatahaado ayuu sameeyaa. saddexdan degmo oo shabeellada dhexena way kusoo laalaabteen fatahaadahaas, sidee looga hortegi karaa? waxaa looga hortagi karaa maamul jiro oo mid state iyo mid heer qarana iyo shacabka oo u bisil waxaan oo ka hortago si wada jira manage gareeyo webiga intuu muxuu jilaalka yahay meelaha jabsanayo biyaha sidii loo muxuu ahaa loo xukumi lahaa in la iska kaashado. marka webiga markuu biyo keenale waa waray soo baxay warta ka horaa la rabaa in la shaqeeyo. marka shacabkeenu wuxuu u baahan yahay shaqada in muxuu laga iga la horkaca
soomaalidu waxay tiraa agoon waxeeda lagu horwadaa shacabku wuxuu u baahan yahay intaasuu u baahan shacabka hoggaan buu u baahan yahay oo dadku muxuu ahaa ku qasbo waxay haayaan waxay ayagu qabsan karaan ku dhiiriyo inay qabsadaan ku qasbo yidhaa war qabsada waa kana ku horkaco wixii kaloo loo heli karo qaab kastaaba ha loogu helo ama cashuur ayaga laga qaada ha noqoto ama deeq iyo dayn meelaha si kastaaba ha lagu helo ha noqoto dadku markii wax la helana sida waxa la qabanay u kala halisan yihiin in loo wajaho marka webigaana wuxuu u baahan yahay maamul iyo dadweyne cid kasta in muxuu ahaa si wada jir ah loo wajaho oo isku dayo biyihiisu in laga manaafacadsado waxyeeladiisana iska muxuu ahaa meel iska saaro waxaa ugu baaqaysaa marka beeralayda iminka bilowday in tacabka qudaarta inay beeraan isla markaana suuqyada soo buuxiyey muqdishona dhoofinteeda u bilaabay wallahi beeralaydu horta waa mahadsan yihiin waan ognahay tabarta ay beeralaydu leedahay wax ku tabcayaan dhaqaale ma jiro waa uu naf dhici weydi baa lagu daboolayaa waxaan leeyahay waad ku dhiirateen muxuu ahaa gacan mana haysataan cid kale oo gacan idinku siinayso idinka marka saan idiin leeyahay maaha inaan niyadu idinka dilayo laakiin ogaade waxaad qabsad qof walba wuxuu qabsado hore markuu gaari karaa hore marka bini aadamku gaaray ma ahan mid ku yimid muxuu ahaa samaawi mid iska yimid manilaahi ka yimid laakiin bini aadamkaas sabu ah qofku wax hore markuu gaara saas sabu ah isku daye hadda wax badan baad ka baday xagga qudaarta in xamar loo iibkeeyo marka haddii muxuu ahaa meelaad u iibgeysaan weydaan xataa marnaba yaani waxaasu niyad jab idinku abuurin isku daya in muxuu ahaa aad ka miri dhalisaan yooman meel ayaana maanka ku haya inaad ku fikirtaan in koostada iyo bagalka iyo muxuu ahaa asalaatada iyo karootada in aad u iibgeysaan muxuu ahaa goboladan kale ee daray regionska inaad u iibgeystaan oo muxuu ahaa sida jaadkan oo ku keenay annagana aan halkaa u iibgeyno